بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعن ونكسن صاحبيال waxaad ku soo dhawaataan warbixin yar oo aan ku eegayno sababta uu necab yahay Memphis Depay inuu isticmaalo magaca Depay maxay ka dhigan tahay taatuuyada jirkiisa ku xardhan bishintiisa hoosteeda xitaa taatuuga ugu qoran kala taga labadiisa waalid iyo xaqiiqooyin laga yaabo inaadan ka maqlin Memphis Depay ayaa si rasmi ah ugu dhawaaq saxiixa xidiga weerarka ciyaara ee Memphis Depay kaasi oo bilaash kaga soo dhaqaaqay naadiga Lyon balse warbixinta waxaan idinkula wadaagaynaa isagoo sharaxaya sababta uusan u jeclayn in loogu yeero Depay ama uusan magacaasi maaliyadiisa ugu qoran. Weeryahanka xulka qaranka Netherland ayaa sanadii 2012 go'aansaday inuu dhabarka maaliyadiisa ku qorto magaciisa ee Memphis oo qura isla markaana uu iska fogeeyo inuu dhabarka ku sito magaca qoyska uu ka soo jeedo ee reer Depay. Memphis Depay waxa uu dhashay 13 February sanadii 1994 waxaa si fudud loogu yeeraa Memphis waa xifradle kubadda cagta oo reer Holland ah. waxa uuna weeryahankani ka tirsanaan jiray kooxda Lyon oo haatan ka soo dhaqaaqay. waxa uuna matalaa xulka qaranka Netherland isagoo bishiina soo dhaaftay July 1 naadiga Red Spine Barcelona qaab beeca horta uu soo biiray. ciyaaryahan Depay waxaa iska dhalay aabbo reer Ghana ah oo lagu magacaabo Dennis Depay iyo hooyo reer Holland oo la yiraahdo Korshi Shenma. waxa uuna sanadii 1994 ku dhashay tuulo yar oo la yiraahdo Morden Rieti oo ku taala koonfurta Holland. waqti dheer ma sii waarin xiriirka labadiisa waalid waa uuna burburay oo hooyadii iyo aabihii waa ay kala tageen markii uu Depay kaliya 4 sano jir uu ahaa. aabihii ayaa go'aansaday inuu reerka ka tago. Depay waxa uu caan ku yahay oo uu jecel yahay inuu korkiisa ku midabeeyo taatuuga mid ka mid ah taatuuga u marsan oo ka muuqda gacantiisa bidix. waxa uu ku maamuusay awowgii kaasi oo geeriyooday maalin ka hor markii Depay 15 jirsaday markii uu gool ka dhaliyay xulka qaranka Australia koobkii adduunka ee 2014 waxa uu dhunkaday taatuugaasi waxa uu cirka u taagay gacmihiisa isagoo goolkaasi ku weyneeyay awowgiisa. taatuuga kale ee ku xardhan jirkiisa waxa ka mid ah mid uu ku xusuusto markii ugu horeysay ee gool uu dhaliyay xulka qaranka ee Netherland. sheekada la yaab kale waxa ay tahay bishintiisa ama faruurtiisa hoosteeda waxa ku xardhan waliba dhanka ilkaha xiga taatu uu ku qoran yahay successful marka la micneeyana ay tahay guuleyste. sidoo kale erayada ku qoran jirkiisa ee taatuuga uu ku midabeeyay waxa ka mid ah Dream Chaser oo Soomaali ahaan noqonayso riya raace. bishii June ee sanadii 2017 waxa uu Depay baraha xiriirka bulshada kaga dhawaaqay inay u doonan tahay ee u alkuman tahay Lori Harvey oo ah gabadha ugu yar ee uu dhalay Stephen Harvey oo ah barnaamij soo jeediye TV-yada Mareykanka ah. markaasi kadibna waxaa la ogaaday in xiriirkiisii uu burburay oo ay kala tageen Depay iyo Lori. bishii April ee sanadii 2020 Depay waxaa dhaleeceeyay dhowr hay-adood oo u dooda xuquuqda xayawaanka kadib markii uu barihiisa xiriirka bulshada ku soo bandhigay sawiro iyo muuqaalo uu kula jiro xayawaano kala duwan isagoo dalxiis ku jooga Dubai. waxaana kadib Depay uu ku jawaabay libaaxyaduba xitaa waa xayawaano duurjoog ah. haddaba maxay tahay sababta uu diido in lagu yeero magaca Depay isla markaana uu Memphis u jecel yahay oo uu xitaa diiday in magaca Depay uu ku qorto dhabarka dambe ee maaliyadda uu ku ciyaarayo xul iyo kooxba. xidigana ayaa arintaasi ku sababeeyay inuusan doonaynin inuu muujiyo xiriirka kala dhaxeeya qoyska reer aabihii kadib kala tag ku yimid Memphis oo caruur ah hooyadii iyo Dennis Depay oo ah aabbaha dhalay. waxaana laacibka cusub ee Barca uu go'aansaday inuu isticmaalo magaca qof isagoo 4 jir ah ayuuna isaga tagay magaca qoyskiisa. marnaba ma cafin doono ayuu Memphis hadalkiisii ku bilaabay isagoo la hadlayay BBC. ha igu yeerin Depay iigu yeer Memphis. marabo
inaan si sax u wada sheego wixii ka dhacay guriga sababtoo ah marabo inaan dadka ka xishoodsiiyo sidaa ayayna ahaan doontaa maxaa yeelay horay ayaan ugu dhaqaaqay ayuu hadalkiisii ku daray 27 sano jirkani si kastaba ha ahaatee dhabarka maaliyadda Barcelona ee uu dhawaan ku biiray sidii caadada ahayd xidigani waxaa lagu qori doonaa magaca Memphis oo qura isagoo naadiga ku ciyaarta garoonka Camp Nou reer Spain la galay qandaraas ku eg ilaa iyo sanada 2023 waad ku mahadsan tahay daabashadaada muuqaalkan kiisa xiga intaan ku kulmi doono anagoo caafimaad qabna iyo idinkoo caafimaad qaba sida iyo nabadgelyo